بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan iyo adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateen waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah ee walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa in aad ka heli doontaan insha Allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah dhul bannaan oo aan halkan xogtiisa idinkugu soo gudbi doono maanta muuqaalka maasha Allah inuu xiiso badan idin yeelan doono ayaa rajeynayaa waxaan joognaa deegaan dalxiiseedka Jazeera oo muuqaalka hadaad daawato aad dareemayso inuu dalxiiska aad ugu wacan yahay weliba dalxiis kaliya ma ahane uu yahay deegaan ku habboon nolosha ama in la dego runtii waa deegaan isku leh xeeb qurux badan iyo dhul cagaaran waa meel kheyraad ilaahay oo ku manaastay kalluunka ayaad helaysaa sidoo kale deegaankan dhankan ka xigo ee wada cagaaran aad u jeedaan waa deegaanka Jazeera oo ah deegaan xoolaha lagu dhaqdo marka maasha Allah daawasho wacan tubogasho wacan walaalayaal haddaba waxaa iib ah 4 boos oo ah meesha hadda aad taagannahay dhanka xeebta xigto waxay ka soo horjeedaan gurigaas villada ah ee aad arkayseen waa meel deegaan leh ma aha meel oo iska bannaan dhul ku yaallo waa dhul ku yaallo meel xaafad ah deegaan ah soo dhawaada waa idin tusi doonaa insha Allah xaafaddii Jazeera ama magaalada Jazeera walaalayaal haddii aad dhulkan joogto xeebta kuma dheera dhul xeebta u dhow sidoo kale jidka weyn ee ka yimaada Muqdisho ee horey laamiga ka yimaada korontada boosaskan waxay ka yihiin sugunto waxaa ka xigo kaliya 2 boos xeebtina waa ay ku muuqataa sidoo kale waxa ay u dhow yihiin boosaskani hoteelka caanka ah ee la wada yaqaano Hotel Jazeera xaafadan waxaa loo yaqaanaa Jazeera Beach ama xaafadda xeebta Jazeera waxa ay ka mid tahay deegaan weynaha Jazeera haddii la dhaho waa deegaan weyn meeshan ayaa magaalo u ah waxa ay u dhowdahay Jazeera magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa ka mid ah Jazeera xaafadda loo yaqaano Abay Dhaxan ama meesha loo yaqaan Abay Dhaxan inaad wax badan maqasheen magacyadan ayaa filayaa marka meesha hadda aad joogno waa deegaan dalxiiseedka xeebta Jazeera oo ay boosaskani ay ku yaalaan ku soo dhawaada walaalayaal meeshan waa meel ceelal ah oo duq ah oo ceelal hore xilli la dhisay ah waxa ay ka mid tahay xadaaradda ama waxyaabaha qadiimiga ah ee deegaankan uu leeyahay ee soo jiidashada leh deegaankan kaliya in lagu dabaasho looma yimaado ama meeshan looma yimaado sidoo kale waa dhul taariikhi ah oo dhulkii xilliyadii hore la deganaa ka mid ah Soomaaliya dabcan wuxuu u baahan yahay baaritaano badan iyo si fiican bulshada loogu soo bandhigo waa ujeedaan xeebta quruxda badan leh ee aan joogno sidoo kale deegaanka quruxda badan leh ee dhinacan kale ka qabanayo walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka cabirka dhulkan iibka ah ee aan idin soo bandhigayna maanta dhulka waa 4 boos calaa boos cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 20 ama finti bar finti dadka qaarkood sida u yaqaanaan booskiba waxa uu naqanayaa dhirir ahaan 20 mitir ballacana sidoo kale 20 mitir marka waxaa iiba 4 boos oo isku dhagan oo cabirkaas ah haddii totalka cabirka la dhahana waxa ay naqanayaan 40 lagu dhuftay 40
marka walaalayaal ka faa'iideysta. haddii aan ka hadlo jidadka ay haystaan boosaskan ama ay leeyihiin, waxaa mara 3 jid. jid waxa uu ka maraa dhanka bari, jid waxa uu ka maraa dhanka galbeed, sidoo kale jid waxa uu ka maraa dhanka waqooyi. marka waa dhul 3 jidla ah, waana sida naqshada dhulkaani oo u samaysan yahay ama naqshadaba aad ka garan kartid, ka arki kartid. soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysi wacan. waxay shirkadda Dallas Real Estate mar walba u taagan tahay inay idin soo gudbiso dhulalka iibka ah, dhulal xiiso leh, meelo kala duwan ku yaalaan, qiimahooda uu kala duwan yahay, dhammaan bulshada qaybahooda kala duwan. hadba qofka tabartiisa intee la eg tahay ayaa u soo bandhignaa dhul anfacayo oo uu gadan karo. haddii uu ka rabo deegaan, qofku haddii uu ka rabo ganacsi. marka moogaanina shirkadda Dallas Real Estate, lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira haddii aad dhul iska gadaysaan. sidoo kale haddii aan ka hadlo walaalayaal dhanka dukumentiga dhulkaani uu leeyahay, walaalayaal dhulkan dukumentigiisa waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. sharcigiisa waa u saxsan yahay, waa u dhammaystiran yahay, wax ka maqan ma laha. nootahay alle midda aad jeceshahay ayuu kaaga wareegayaa. meeshaan aad joogno waa xeebtii, waa hotel Jazeera. waa ujeedaan xeebta quruxda badan leh ee dhulkaani uu u dhow yahay ama saaran yahaba. ka faa'iideysta walaalayaal, lagu soo yaaco. waa meel qurux badan, deegaan ku habboon, sidoo kale dalxiis ku habboon. waa magaalo yar oo aad ka heli karto dhammaan adeegyada bulsho aad u baahan tahay. walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha lagu rabo dhulkaani, waxaa lagu rabaa calaaboos $15,000 Mareykanka ah, waana la isku gadayaa 4 boos. marka waxay noqonayaan $60,000 Mareykanka ah, oo ah isku dhammaad macal dalaal iyo dabcan heshiis. wada hadal waa uu ka furan yahay. waxaa la yidhi beec meeshoo ka bilowdo kuma dhammaado. marka soo dhawaada walaalayaal, haddii aad daneynaysaan waa idin soo tusineynaa insha allahu tacaala. kadib haddii aad ku qanacdaan, beeca laga wada hadlayaa, kadibna si sax ah ayaa laidinkugu wareejinayaa. dukumentiyada nootayada ugu fiican ayaa lagu geenayaa ama aad jeceshahay. meeshaan waa wadadii xamar aadeysa. deegaankan quruxda badan leh ayaad diris la noqonaysaa insha allahu tacaala. ugu dambeyn ka hadlo dhulkaani waxyaabaha uu ka anfici karo. dhulkaani wuxuu ka anfici karaa maalgashi, oo waa dhul mustaqbal leh. waxaaba ku qabanaysaa meeshaan yaa muqdisho uga nasta ama ka soo raraba caasimadda. walaalayaal waxaa isleenahay dhulkaani qiimihiisa waa uu kordhi karaa. marka qofkii maalgashta lacagtiisa lacag ka badan ayuu biri ka helayaa. waa sida aan qiyaaseyno haddii ilaahay odmo. sidoo kale walaalayaal dhulkaani waxa uu ka anfici karaa deegaan, inaad inta dhisatid aad degtid. waxaa kale uu ka anfici karaa ganacsi ahaan, in dhulkaani guryo inta aad ka dhistid, haddii meeshaani ay sii hormarto ama waddanka xaalkiisa sii hagaago, markaasi ay kuu noqdaan guryaha aad ka dhistid kuwo la kireysto ama kuwo hoteelo, maqaayado, meelo ganacsi aad ka dhigatid. marka run ahaantii dhulka maanta aan idiin soo gudbinayno waa dhul siyaabo kala duwan ku anfici karo, qiimihiisa uu jaban yahay, deegaan ah. marka walaalayaal laga faa'iideysto. haddii aan mar labaad si kooban idinkugu soo celiyo, walaalayaal waxaa iib ah 4 boos oo bannaan. calaa boos cabirka uu yahay 20 lagu dhufto 20, jidka Jazeera ee xamar ka yimaada hore laamiga ka ah. markuu jayga isku bedelo waxay ka noqonayaan sugunta boos. waxaa ka xigo
laba finti oo keli ah. sidoo kale xeebta way u dhow yihiin iyo hotel jaziira, dukumiintigooda waa nadiif, maxamed siyaad barre ah. qiimaha lagu rabo waa $60,000 Mareykanka ah. afarta boosba calaa boosna waxuu noqonayaa qiimihiisa $15,000 Mareykanka ah iyo heshiis. dabcan soo dhowaada walaalayaal. ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaan idinka codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambalelkan aad furataan, idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelino in sha allahu tacaala. waa mahadsantihiin walaalayaal. shirkadda Dallis waxay mar walba u taagan tahay qancinta macaamiisha.